wacan oo wanaagsan idilkiima kusoo dhawaada janalka Xayla Media. maanta waxaanay wada qiso aad la yaab leh. qisada waxaan u qeyban doonaa laba qaybood insha Allah taala. qaybta koobaad waxaa jiray nin boqor ah oo jooga dalka Talyaaniga ama boqortooy la jiray Roman. ayaa ninkaasi aad ayuu u xanuunsanaa, xanuunka baraska la yiraahdo ayaa hayay. marka waxaa dhacday marka waliba dhaqaatiirtii oo dhan way ka washacday. maalin maalmaha kamid ah waxaa soo galay magaalada nin dawooyinka dhirta ku takhasusay. magaalada markuu soo galay waxaa looga sheekay marka uu ka loo sheegay in uu jiro boqorkooda xanuunka uu hayo. marka waxay ku yiraahdeen haddii aad ka daweyso kolley nolosha way ku fiicnaan doontaa. ninkii baa boqorkii baa loo keenay, boqorkii wada sheekaysteen. wuxuu ku yiri marka boqorow, waxaan rabaa hadduu ilaahay idmo inaan xanuunka haya aan ka daweeyo. waa yahay buu yiri. wuxuu yiri haddii xanuunka aad iga daweyso wax alla wixii adduunyo aad u baahnayd waa ku siinayaa. waxaadna noqon doontaa la taliyahayga gaarka khaaska ah ayaad noqon doontaa. adigu waa yahay buu yiri. ninkii waxaa dhacday markaa weliba wasiiradiisa oo dhan iyo xildhibaanadiisii iyo ragga la taliyaasha oo isaga tageen. dadkii ehelkiisa ahaa bas unbaa kusoo hadhay. haddii marka shirka la gelaya halkaa unbaa la fadhisan oo waa laga sheekaystaa oo haddana la salaami maayo. marka aad marka ninkii u tiiraansanaa. markii magaalada ninkii uu soo galay oo xogtii ay wadaageen, wuxuu ku yiri goormadii daweynaysaa? waxaan ku daweynayaa berri insha allahu tacaala. maalinkii marka dawadiisii wuu soo habaystay, isku soo ritay. dawadii buu marmariyay ninkii boqorka ahaa. wuxuu yiri bax meesha dadka ciyaar dhaqameedka ka jiraan tag, halka dadka ciyaarta kala qayb gal, dadka ha ku fiiriyaan dhididka. markaa dhidido dawada waxay galaysaa la falgalaysaa dhididka meeshu ka soo baxay iyo meesha xubnaha timaha ay ku yaalaan ee dulduleelka jirka dulduleelkiisa ayay dawada galaysaa. sidaas sameeyay ayuu ku yiri. masaasa hay waye waa yahay. sidii buu sameeyay. marka ninkii markuu soo laabtay jirkiisa dhan sidii la rabay ayuu ku soo laabtay. barnaamij dawo ayuu ku maleeqay. adigu markii dambe nin oo markii ilaahay u daweeyay ninkii la taliisu ka dhigtay agtiisa soo fadhiistaa. markasta uu la taliyaa. markasta markii wasiirada dhan ay halka fadhiistaan asna uu garab fadhiisanayaa. ninkii muxuu ahaa nin muxtarim ayuu noqday oo aad loo ixtiraamo oo dadka ka wanaagsan laga xigtaysto. isku soo wada duduuba ninkii waxaa dhacday markaa maalin maalmaha kamid ah nin xaasad ah ayaa oo wasiirada kamid ah ayaa wuxuu yiri ninkan wuxuu u diiday marka u nacabtoobay u nacay u xaasaday ninka la fadhiya boqorka la fadhiya sidii meesha uga saari lahaa loona dili lahaa ayuu go'aansaday. marka sheekada qiso way dheer tahay. marka arrintii maalin maalmaha kamid ah ninkii dhakhtarka ahaa uu iska baxay. ninkii boqorka ahaa ninkii wasiirka u imaaday. boqorow war ma kuu sheegaa buu yiri. haa ii sheeg buu yiri. hadda ninkii boqorka ninkii way wada casheeyaan, way wada cunaan, xafiiska ay kuwa markoo sheekaystaan. nin asxaan u galay weeyaan. marka masaas ahaa wuxuu ku yiri boqorow hunguri wad ma arko. hunguri wad ma arko. waxaa la yiri maamaha Soomaaliya waxay ahayd hal ninkii koriso ayaa wadkeeda iskale. marka waxaan ku dhihi lahaa ninkani siduu ku daweeyay ayuu ku diri doonaa. waa nin jaajuus oo la soo diray oo raba in uu ku dilo oo nolosha ku dhaafiyo ayuu yiri. waa kuwa ninka loo yaqaano xakiim dawaa loo yaqaano ee ku daweeyay. ma ninkaasi wanaag buu galay. lagama yaabo adigu war dhag cuntay dhag labaad ma cuntee. waxaa la yiri been tagtay run ma gaadho. ninkii wuxuu yiri sabab. wuxuu yiri ninkaasi sabab badan ayuu leeyahay. suud ku daweeyay ayuu ku diri doonaa. waa nin la soo diray. sidaad ogtihiin dadka madaxda ah malkumoodku way necab yihiin. in la afgambiyana way necab yihiin. in la dilana way necab yihiin. saa darteed waa kad garanaysaa qisadii duqi fircoon ahaa reer bani Israa'iil markii nin uu yiri nin saaxir ah oo dhihi jiray
nin reer bani israa'iil ah ayaa ku dili doona aakhirkaaga wakiilu yiri haddaan wiilba aan usoo reebinba maxaa dhici doona maxay dilayaan wey wakiila marka nabi ilaahi Muuse calayhi salaam ka badbaadiyay qisada dheereed sheekad halkaas ahayd marka ninkii boqorka ahaa wuxuu yiri ninkaas uu ku dili doona aakhiran nolosha ku dhaafin doona kow oo sidee diri doona aduu sheekada wuxuu wadayba maalinka dambe ninkii ayaa loo yeedhay wuxuu yiri niyow boqorkii baa u yeedhay ninkii daweeyay wuxuu ku yiri waxaan rabtaa inay disho yiri markaasuu yiri waxaad doonaysaa jaajuus la soo diray ayaa tahay waad i dili doontaa sida darteed intaad i dilin anna waa ku dilayaa yiri wuxuu ku yiri boqorow nin xanuunkii ku hayay ilaahay subxaanahu wa ta'aala sababtiisa kugu daweeyay ayaan ahay sideen kuu dilayaa asxaab badiga ana asxaaban kuu galay xanuunkii lagaa kala tagay ayaan kaa daweeyay oo ilaahay gacantayda uu kugu daweeyay sideen kuu dilayaa man calan ayaa tahay man doqon ayaa tahay qaabkeed u fikiraysaa waray dilin buu yiri maya waan ku dilayaa qodhaan kaa jarayaa nolosha ayaan ku dhaafinayaa intaad i dilin ayaan ku dilayaa wuxuu yiri nin yahay dilin wanaag baan kuu galay asxaab baan kuu galay haygu abaalmarinin jazaxun haygu abaalmarinin maxaa yeelay meeshan ogaa ayaan kaa soo qaaday si wanaagsan ayaan kuula dhaqmay si fiican ayaan kuu daweeyay oo hagar la'aan ah waan kuu hagar baxay hay dilin buu yiri maya waan ku dilayaa buu yiri markaasuu yiri haddaba markuu arkay ninkii xakiimad adwaa markuu arkay qaabka ninka uu dhaqmayo ee u fikirayo maskaxdiisii madaxiisii in mijal loo rogay markuu arkay ayuu wuxuu ku yiri haddaba waxaan kuu sheegayaa buu yiri cilmi kale intaadii aad i dilin dawada yaan la dhimanine waan kuu sheegayaa waxaad ii fasaxdaa buu yiri xaafadayda gurigeyga ii fasax si aan dadkiina ciyaalkii iyo haweenkii aan ola soo dardaarmo aan u dhaho waa lay dilayaa waan dhimanayaae haddee halkaa waxaa ka qaataa odani weyn inuu soo dardaarmo ayaa looga baahanya reerkiisa waan gartay marka sidaa markay ahayd waxaa dhacday marka in uu yiri oo maxaa samaynaysaa wuxuu yiri dhammaan wax alla wixii dawa ah ee taala gurigeyga ayaan soo qaadayaa waana kuu keenayaa haddii hadda ka dab dad uu xanuunsado ayaad ku daweyn doontaa waaye ninkii boqorka ahaa madaxu laalaadiyey wuu fikiray maxaad samaysaa buu yiri maya weli wuxuu yiri tuug baa tahay maxaad doonaysaa inaad baxsato nin male haddaan baxsana ma baxsanayay askartaada i raaci buu yiri askartaada i raaci ayuu yiri askarta ay waardiinaysay waaye sidii buu yeelay askartii buu raaciyey maalin bay u ogolaadeen gurigu iska galay buug ayuu xaashiyihiisa yuu soo qaaday wuxuu mariyay sun dhidhiba ah oo khatar ah oo saa markay candhuuftaada ay u raacdo hore kaa dilis ayuu soo qaaday buuggii warqad mariyay warqadiina marka koolli isula dhajay wax noocaas koollo khafiifa oo markii xoog loo kala furi karo ayuu soo qaaday buuggii buu mariyay marka wuxuu yiri buuggii marka soo qaaday iyo waxyaabo kale soo qaaday boqorow wuxuu yiri 4 warqadood markaad gediso buugan kow ka bilow 4 warqadood ka bilow 4 iyo 6 markaad gaadho sadarka kale buuga kale ayaad ku arki doontaa sadaro wax ku qoran markaad aragto waxaad arki doontaa markaad buuga aad akhriso waxa kuu soo bixi doona intaad idil madaxayga ayaa hadli doona uu yiri oo madaxayga soo ku hadla madaxaaga wabad dhibaatay ku hadlay anaa ku tusahay buu yiri sidaas sameey buu yiri wuxuu say markaa ninkii boqorka ahaa ee daalimka ahaa ee sidii xun ninka ugu abaal guday wuxuu sameeyay marka in uu sameeyo warqadihii warkore marka candhuuftiisii ay marka ku qoynaya marka warqad gacanta ayuu saa ugu qoynaya labada suulkii farta warqad marka xoog buu marka u fujinaya marka soo warqada ay qalaftana carabka gacanta ay qalafto farta ay qalashana wuxuu sameeynaya carabka ayuu taabsiinaya marka bogil afraad markuu gaaray wuu dhintay ninkii
boqorkii ayaa dhintay ilaa wuxuu ku yidhi waxaa hadli doona madaxayga ayaa hadli doona ayuu ku yidhi. marka dadkii ayaa markaa soo yaacay. marka ninkii wasiirka ahaa khaa'inka ahaa xaasadka ahaa dhibka badnaa mushkiladan intan la eg ka taliyey asaguna halkaa ayuu fadhiyaa. marka raggii rabay ninka inay dilaanna seefaha haystayna meesha ayay taagan yihiin oo tuban yihiin oo seefahoodii ayay la tuban yihiin oo waxay doonayaan in uun mar uun amar uu siiyo sida uu ninka karkaarka u weydaarin lahaa. keliya waxay sugayaan uun in uu amar uu siiyo. laakiin nasiib darro waxaa Soomaaliya ku maamaadaa god khayaano ha qodin ku dhici doontina mooye. marka godkii waxaa ku dhacay ninkii ayaa ku dhacay. sidaa darteed qisada qaybteeda labaad ayaa soo socota.